dhammaan waad salaamantiin ku soo dhawaada wax ka bara channel muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa 6 su'aalood oo la weydiiyo naftaada ka hor inta aanad guursan maxay dad badani isku furaan waxaa jira sababo badan oo ku dhiiri kaliya dadka inay isfuraan qaar ka mid ah sababahaasina waa dhibaato xagga dhaqaalaha ah ku xadgudub is-aamin darro qanaaco la'aan ka dhex jirta labada qof iyo qaar kale oo badan si kastaba ha ahaatee ma la socotaa in qaar badan oo ka mid ah sababahaasi ay asal ahaan ku lug leeyihiin doorashada qaldan ee uu qofku sameeyo ka hor inta aanu guursan haddii la weydiin lahaa waxyaabaha sababa furiinka jawaabtaydu waxay ahaan lahayd qofka oo markiisa hore qof qaldan doorta ayaa ah sababaha ugu weyn ee keena furiinka markaan leeyahay qof qaldan uu lama jeedo qof xun balse macnuhu wuxuu yahay qof aydan isku fikir iyo aaraa ahayn noloshana aydan isla fahmin haddaba ma ka fogaan kartaa inaad mustaqbalkaaga la kulanto dhibaatadan furiinka xaalado badan oo furiin ah waxa lagaga fogaan karaa adigoo marka hore weydiiyo naftaada su'aalahan soo socda ka hor intaanad guursan kow dhab ahaan miyaan u rabaa qofka mise waan iskaga baahanahay miyaad dhab ahaan u rabtaa inaad qofka la qaybsato noloshaada mise waxaad doonaysaa inaad qofka xiriir iskala yeelato sababtoo ah waxaad u baahan tahay qof kugu lamaanaada mise dhab ahaan ayaad u jeceshahay qofka miyuu cadaadis igaga imanaya saaxiibaday igu qasbaya inaan guursado miyaad u guursanaysaa sababtoo ah waxaad jeceshahay qofka aad guursanayso mise waxaad u guursanaysaa sababtoo ah dhammaan saaxiibada ayaa guursaday markaad qof guursanayso sababtuna ay tahay cadaadis kaaga imanaya saaxiibada jaaniska uu guurkaasi ku fashilmaa wuxuu noqdaa mid aad u heer sareeya miyaan xaqiiq ahaan u rabaa qofka mise waa waxa ugu fiican ee aan samayn karo miyaad u guursanaysaa qofka sababtoo ah dhab ahaan ayaad u jeceshahay mise waxaad aaminsan tahay inay tahay waxa ugu fiican ee aad samayn karto dadka qaabkan u fikira badanaa natiijada guurkoodu waxay ku dambaysaa mid aanay ku qanacsanayn afar miyaan u malaynayaa in qofkani yahay mid ii fiican mise waa fikradda dadka kale miyaad u guursanaysaa qofka sababtoo ah dhab ahaan ayaad u jeceshahay miyuu dhab ahaan qofkani qancin karaa baahiyahaaga mise waxaad u dooranaysaa sababtoo ah dadka kale ayaa kuu sheegay inuu kuu fiican yahay shan weli ma jecelahay qof kale haddii aad weli jeceshahay qof kale balse aad u guursanaysid sababtoo ah ma helaysid qofka aad jeceshahay waxaad u baahan tahay inaad naftaada weydiiso su'aal kale ka waran haddii qofkaasi uu ku yimaado kadib markaad guursato aanu kuu sheegay inuu ku jecel yahay lix miyaad qofkan weligaa la wadaagaysaa noloshaada si ka duwan guryaha ama gawaarida xiriirka guurku wuxuu yahay go'aan badan mar kaliya la sameeyo oo ay adag tahay in la bedela isla markaana waara weligii diyaar ma u tahay inaad qofka la noolaato noloshaada inta ka dhiman haddii jawaabtaadu tahay hore ugu soco oo guurso haddii aanad ka jawaabi karin su'aalahan waxa kuu fiican inaad joojiso guurka oo aad dib uga fikirto waxaa jira dad badan oo guursada iyagoon ka fikirin qofka ay dhab ahaan u rabaan guurku maaha wax sahal ah waa wax saameyn aad u ballaaran ku leh noloshaada dambe waa contract ama heshiis aad saxiixayso oo aad u adag haddii go'aankaad qaadanaysaa kaa xumaadana waxaa suurtagal ah inaad mar dambe qoomamayso noloshaada ujeeddada muuqaalkani ma aha inuu kugu dhiirigelinayo inaad joojiso guurkaaga balse wuxuu kuu sheegayaa inaad si fiican uga fikirto ka hor intaanad tallaabo hore u qaadin si aanad u samayn go'aan qaldan oo ku sababi kara noloshaada dhibaato ciil iyo qoomamo dambe buuga sida saacad gudaheed loogu ogaado qofka ku jecel waa buuga ay sii daayeen wax ka bara channel kaasi oo ku baraya sida 100% loogu ogaado qofka ku jecel wax ka yar saacad gudaheed haddii aanad ku ogaanba 5 daqiiqo ee ugu horeysa booqo website-kan si aad u ogaato sida lagu helayo buugan sidoo kale waxaan website-kan kugu qori doonaa fiidiyogan qaybtiisa hoose ee description-ka si aad u ogaato xog badan oo ku saabsan buugan ama daawo fiidiyogan si aad u hesho xog badan oo ku saabsan buugan